السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن ودا سلام ساد ودا انتهين. waxaan rabay in aan caawa idinla wadaago 10 oo caafimadeed oo hadda ka hor aan idinku soo gudbiyay qoraal ahaan ood ka heli kartaan maaragtay page-ka caafimaadka oo Facebook aan ku leeyahay. caawana waxaan jeclaan lahaa in aan maaragtay idin dhammaystiro 10kaas isagoo maaragtay si fiican aan aga hadlayo. 10ka caawa oo caafimaadka wuxuu ku saabsan yahay cudur aad iyo aad Soomaalida maaragtay ugu badan waxaa la yiraahdaa cudurkan chikungunya la yiraahdaa xumada chikungunya Soomaalida waxay u taqaanaa kaduudiya ama kaduusha ama qalloociye hadba maaragtay qofka soo u yaqaan. waa maxay cudurkan? horta waxaan rabaa intaan cudurka u galin dijaamka hadalkiisa xogaa yar oo taariikhiyan oo cudurkan ah meeshuu ku yimid qofka lagu arkay iyo dhinac maaragtay oo Soomaalida oo ka soo galay. chikungunyaha waxaa la fahmay cudurkan haddii aan qiyaaso 1954 ama 53 meelahaas camal. waxaana lagu arkay nin maaragtay maxay ahayd oo kasoo jeedo qoomiyadda Makonde. qoomiyadda Makonde waa qoomiyadda maaragtay Afrikaan ah oo degan xadka u dhaxeeyo Mozambique iyo Tanzania. odagan waxaa lagu arkay maaragtay 4 beri 5 maalmood cudurkan qandho xun baa haysay maaragtay xanuun maaragtay jirka xanuun faafayo jidka oo dhan baa hayay. siiba xanuunku wuxuu ugu darnaa maaragtay isgoyska jirka. marka mid kaleeta oo timid waxa weeyaan waxaa la arkay ninkan markuu sariirta aadaya ama markuu maaragtay dijaamo soconaya isagoo dhan baa isku soo kaduudsan, markuu maaragtay soconaya isagoo dhan baa qalloocsan. marka waxaa la yiri ninkan qandhadan 40 maalmood haysa waa qandho aad iyo aad u sarreyso ilaa 40 gaarayso matag iyo wax kasta lagu arkay. marka waxaa la geeyay maaragtay isbitaalkii baa ninka lagu fiiriyay, dhiig baa laga qaaday. dhiigga marka la qaado waxaa la arkay maaragtay maxay ahayd sababta oo keenta cudurkan. cudurkan marka kaas lagu arkay cudurka wuxuu u soo faafay u soo gudbay Tanzania, u soo gudbay Kenya, u soo gudbay Soomaaliya, soo galay Soomaaliya. markuu soo galay markaas waxa kala baxay dhinacna wuxuu aaday Hindiya iyo Pakistan iyo Philippines iyo meelahaas buu aaday, dhinacna wuxuu soo aaday kor oo maaragtay Carabta ilaa uu ka yimaado dalka Talyaaniga 2007 kadibna oo Yurubtii iyo Mareykanka adduunka oo dhan oo ku wada faafay. waa maxay marka cudurkan yaa keena? cudurkan waa cudur maaragtay dhaliyo via viruskan wuxuu ka mid yahay qoyska maaragtay togavirus. waa cudur maaragtay aadanaha oo cudur la yiraahdo zoonosis. cuduradan la yiraahdo waxa waa cudurada maaragtay ana aadanaha isku gudbi karin laakiin in ay u dhaxayso maaragtay cayayaan oo isku gudbiyo maaragtay aadanaha aadana. marka viruskan kana waxa aadanaha u soo gudbiyo qoladan maaragtay kaneecada. waa laba nooc kaneeca bay jirto, midna waxaa la yiraahdaa Aedes aegypti, midna waxaa la yiraahdaa maaragtay maxay Aedes albopicus. labadaba waxa weeyaan viruskan jirkooda bay ku jiraan. jirka markay ku jiraan jirka maaragtay qofka bay u tagaan, qofka bay maaragtay qaniinayaan, kaneecadu way qaniinaysaa, viruska u gudbinaysaa, viruska meeshaas uu ku koraya, kaneeca kaleeta baa imaanaysa, dhiigga bay ka dhuuqaysaa, aadana maaragtay caafimaad qabo ayaa siinaysa. qaab meeshuuba maaragtay waxaa ka qaadaya kaduudiyo. kaduudiyahan haddii aan fiirino ma dhibaata buke anaguna u sii gelin weli maaragtay astaamihii iyo sida maaragtay disham lagu garan karo iyo sida lagu baarka iyo daawooyinkiisa iyo waxaan rabaa marka hore inaan fiiriyo inaan idinla wadaago in cudurkan haddii uu haleelo naag uur leh ama naag maaragtay maxay ku jirto xilliga naasnuujinta, haddii cudurkan oo maaragtay saameyn karo ama uurjiifka ama maaragtay dhallaanka oo naasnuuga. waa mid haddii maaragtay cudurkan uu ku dhaco hooyo
oo markaa uur leh ama markaa maaragta dhalmo ku jirto cudurkan dhibaato ayuu u geysanayaa maaragta uurjirka sababto ay tahay wuxuu ka haleelayaa maaragta maskaxda wuxuu maaragta dhibaato u geysanayaa wadnaha wuxuu dhibaato u geysanayaa beerka wuxuu dhibaato u geysanayaa maaragta jirka laakiin waxaa dhici karta xataa in waqti oo cunugan ilmaha ay kusoo dhacaan ama oo keeni karo in ilmaha ay maaragtay ku dhintaan uurka marka aad iyo aad buu khatar u yahay naagta maaragta uurka leh oo cudurkan maaragta maxay ahayd saameeya xilliga naasnuujinta ilaa iyo haddeertaan lama hayo maaragtay in caanaha naaska oo viruskan uu ku jiro lama hayo ilaa haddeertaan waa la baaray dhinac kastaa laga fiiriyey laakiin ilaa iyo haatan waxaan dhihi karnaa caanaha cunuga naasnuuga ah wax dhibaato uu keenaya malaha haddii aysan dhicin in maaragta kaneecada asaga eeba direct inuu u haleelin siaan ku garanaa marka midda ugu maaragta maxay ahayd muhiimka ah waxa weeyaan cudurkan goorta kugu dhaco goorta ku qaniinto ama kaneeco maaragta markaas viruska jirkeeda ku jirto jo way ku gudbinaysaa laakiin waxay u baahan tahay virusku wuxuu u baahan yahay 2 maalmood 3 maalmood camal inuu jirka ku kobco markuu jirka ku kobco markaas buu dhiigga soo gelayaa waa markuu maaragtay la soo baxaayo astaamihiisa maaragta lagu garto ugu horreynna waxa weeyaan astaamaha xumada waa febra ku qabanaya febra aad iyo aad u sarreeya 39 iyo bar 40 iyo maaragta hal iyo waxaa soo gaaraya febra waxaa ugu xigto xanuun jirkiiba dhan baa ku xanuunaya waxa ku xanuunaya madaxa ku xanuunayso waxa ku xanuunaya murqaha ku xanuunaya lafaha ku xanuunaya waxa ku xanuunayso maaragta maxay ahayd matag baa ku qabanaya laba baa ku qabanayso laakiin astaanta oo khaaska oo aan ku garan karno inuu chikungunya aan ku tuumi karno inuu yahay xanuunka oo isgoosyada jirka oo ka qabanayo taas weeye markaan aragna anaga maaragta kaduudiye nin maaragtay habeenka markuu seexanaya asagoo dhan isku soo kaduuday qandha xun hayso waxba cuni karin laba iyo matag iyo maaragtay jir xanuun iyo waxaasoo dhan iyo daal iyo ahaayo haddana qaabka oo markaas iskugu soo kaduuday ayaa maaragtay ka garan karnaa kaduudkaasna waxaa keenaya wuxuu raadinaa dhinac oo maaragtay ugu roon oona xanuunka dareemi karin taas waa tan ugu muhiimsan aan ku fahmi karno laakiin waxay jirto koleytaba maaragtay viruskoo dhan ama astaamahooda way isku dhow yihiin in ay maaragtay maxay ahayd way isa shabahaan hase yeeshee astaan kastaba virus kastaba astaan asaga oo calaamada ah ay jiraan kan calaamadihiisa waxa waaye in maaragtay isgoosyada aad ay ku xanuunaan markii dijaama waqtigiisa oo dhammaadane in jirkaadii oo dhan ay ka soo baxaan faniine inuu ka soo baxo laakiin intaas laguma filna marka waxay jirto maaragtay cudur kaleeto denga la yiraahdo ama cudur maaragtay febrajale la yiraahdo way badan yihiin cudurada oo aad iyo aad maaragtay u shabaho chikungunya ama kaduudiyaha marka waa in maaragtay si qaas ah dhiigga loo baaraa oo laga raadiya aqoonta viruskan mar haddii la helay maaragtay viruskan waa naqaanaa marka wuxuu yahay daawo ma leeyahay daawo ma leeyahay cudurkan maaragtay xanuunka badan leh iyo waxsaas daawadiisa asaga daawo u qaas ah ma jirto sida viruska oo dhan daawo ma laha waxaa jirto daawooyin oo viruska loo isticmaalo laakiin chikungunyaha ama maaragtay maxay ahayd viruskan daawo asaga u qaas ah ma hayno oo aan kula dagaalamin karno laakiin waxaan haysanaa daawo maaragtay oo xanuunka jebinayo oo maaragtay sida maxay ahayd naproxenka sida maaragtay ibuprofenka sida maaragtay maxay ahayd sida maaragtay maxay ahayd paracetamolka waxaasoo dhan waa cuduraha maaragtay xanuunka jebiya qandhada jebiso marka wax kaleeta aan hayno haddii ay dhacdo in maxay ahayd daawooyinkan aysan qofka ama aadanaha aysan waxba ka taraynin marka waxaanu aadaynaa daawooyinka awood badan daawooyinkaas waxa weeyaan ama inaan cortisol aan isticmaalno oo la dagaalamo maaragtay xanuunka iyo bararka lugaha maaragtay isgooyada bararka iyo kulaalka waxaas keenayo
ama haddii taas noqonaysin waxa waaye inaan maaragtay aadno daawooyinkan maaragtay oo morfiinka ah si xanuunka agoonto loo jebiyo ilaa meeqa maalmoodoo soconaa marka chikungunya kaduudiyaha kama badna horta waa cudur sidiisaba u dhammaanaya xanuunkan kadib qofka maaragtay 10 maalmood oo ka kacaya laakiin waxaa jira qaar oo aadana ah oo cudurkan ku raagi karo oo ku noqon karo chronic disease taas waxaa weeye ilaa 3 bilood 6 bilood anigu waxaan arkay xataa koox oo Soomaali maaragtay yimideen oo chikungunya ku dhacay ilaa ay oranayaan ilaa 1 sano buu yahay waana suuragal laakiin waxa ku hayo waxa weeyaan xanuun oo aad ka dareemaysid isgoysyada jirka marka isgoysyadaas haddii aad maaragtay kaniiniyaashan aad u qaadatid meeshooda maaragtay iskaaga baaba'aya laakiin ma aha wax kaa haraya qaar nasiib bay leeyihiin cudurka marka maaragtay 10 maalmood kadib way ku dhamaanaysa wayna kaa tegaysa mid baa jirto cudurkan wuu kugu soo kici karaa marka ay timaado kanaaco kale oo ku qaniinto oo viruskan haysato oo maaragtay jirkaada dijaamo ay ku dhacdo cudurkii baa kugu soo noqon kara maaha hal cudur aad weligaa maaragtay mar kaleeto oosan kugu soo laabanayn marka muhiimadda cudurkan waxaa see looga hortegi karaa marka maadaama aan haysana daawo oo generic ah oo xanuunka iyo waxa aan maaragtay calaamadaha maaragtay maxay ahayd ka hortegi kara laakiin waxaa loo baahan yahay seebaan annaga aga hortagnaa cudurkan midda looga hortegi karo waxaa waaye dagaal lagu qaado kaneecada waa arrin iska dhib badan waa la soconaa kaneeca waxa waaye waa lala dagaalami karaa laakiin sida maaragtay loo laayi lahay ama gabi ahaan loo tirtiri lahay aad bay u adag tahay laakiin waxaan samayn karnaa maaragtay in la qaato maaragtay daahyadan maaragtay shabaqada oo albaabada lagu xiro shabaqada maaragtay sariirta maaragtay la kor saaro aad hoose ka galaysid in lala dagaalamo meelaha ay biyaha fariistaan maadaama kaneecada ay ka dhalato maaragtay biyo fariisiga iyo waxsaas ah taasoo ayadana waxa weeyaan maaragtay la dagaalan oo aan samayn karna maaragtay kaneecada marka aad iyo aad waxaan u marayaa in aan maaragtay maxay ahayd soo koobay xogaa maaragtay aan idin fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay oosan ahayn cudur dilaa ma aha waa cudur 7 maalmood iyo waxaas maaragtay si xun kuu qabanaya kadibna aad maaragtay ka biskoonaysid walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan maaragtay kala faa'iidaysanay ilaahay maaragtay hadduu raalli ka noqdana waxaan rajaynayaa maaragtay mararka soo socda inaan maaragtay idin soo gudbiyo 10 kaleeto oo aad ka heshaan oo maaragtay faa'iido iyo aad ka faa'iidaysan kartaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هذا وما سنتهين مع سلامة.